ku dhawaad 1500 oo arday ayaa saaka subaxnimadii hore u fadhiistay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee Somaliland gobolka Awdal agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ay weheliyaan maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal kan degmada Boorama iyo ka gobolkaba waxay si wada jir ah u fureen imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee Somaliland waxa si toos ah inoogu furmaya on xariga ka jareynaa imtixaankii shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiyada sare ee dalka oo dhan waxa alxamdulillah inuu imika inoogu bilaabmay si nabada inay imtixaanka shahaadiga gobolka Awdal waxa uu fadhiisanay 1470 arday goobaha imtixaanka lagu kala galay ama centeriska imtixaanka lagu galayna waxa weeyaan 26 center waxa halkan aan doonaynaa inaan ka cadeyno inuu GCG uu furmay si official school Shacal Jaar baan joognaa aasaaska wahayd in hoyga waxbarashada caafimaadku haddana labadaba sanadka hawl gaar ah ku dhacday oo xanuunkaasi keenay sida ay uga fooseen ama uga guuleysteen inay imtixaankii haddana qabsoomo ardaydan cashiradii gaadhayeen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa oo maanta 27 bishii June 2020 ka tahay oo si rasmi ah imtixaanka uga furmay dalka oo dhan runtii ka furmay imtixaanka waxa fadhiisanaya sanadkan guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland 10726 arday baa fadhiisanaya oo ku kala galaya markaa 1999 haddaba dugsiga sare Ubaya binu Kacab ee magaalada Boorama oo kamid ah dugsiyada ugu waaweyn iyo goobaha lagu galayo iyadoo oo la raacay habraaca talooyinka ay soo jeediyeen guddiga COVID-19 ee Somaliland ay gabi ahaanba ka muuqatay muuqaalka dugsigaasi ayaa waxa ka warbixiyay Xuseen Cali Maxamuud oo ah kormeeraha imtixaanka dugsiga sare ee Ubaya binu Kacab Alhamdulillah rabbil alamin waxaan supervisorkii u siday imtixaanka dugsiga Ubaya ay ku galayaan 3 iskuul Ubaya Al-Aqsa iyo Al-Nur alxamdulillah wax dhibi ma jiraan golaas walba 6 baa ku galay ilaaliyana wuu ilaaliyay waxa la wax dhibi ma jiraan taagga si fiican uu noogu qabsoomay imikana gabagabadii baan ku jirnaa maadana way dhamaatay tii kalena gabagabo ay ku jirtaa insha Allah khayr baan rajaynaynaa inay ku dhamaato Mustafa Maxamed Allabari maamulaha dugsiga sare Ubaya binu Kacab ee magaalada Boorama ayaa isagu si qoto dheer uga warbixiyay imtixaanka saaka looga fadhiistay dugsiga sare Ubaya binu Kacab maanta way bisha tahay 27 bishii June 2020 waxa si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaan gobolada Jamhuuriyadda Somaliland imtixaankii shahaadiga ahaa gobolka Awdal oo aan ka tirsanahay gobol maxamed iskuulka Ubaya binu Kacabna maanta ayuu si fiican uga bilaabmay sadarka saan anagoo tixgelinayna go'aamada ay soo saartay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada ee ka hortagga xanuunka aafada ah ee coronavirus waxaanu diyaarinay qalabkii lagu falaxanay saadka arkasaan maxaaday kamarada ka arkasaan waxaanu diyaarinay maxaaday qalabkii maxaaday la xiranay oo dhan iskuulka oo diyaar waxa guud ahaan ka qayb galay iskuulka Ubaya binu Kacab sanadka 255 arday oo ku kala galay 15 goobood oo kamid ah magaalada Boorama goobtan aan joogo oo iskuulka Ubaya binu Kacab waxa ku galay maxaaday 78 arday oo iskugu jira 6 fasal oo ah Ubaya 5 fasal oo Al-Aqsa iyo fasal maxaaday Al-Nur 78 arday fasalka 6 baa u fadhiistay waxaan isku jirsiinay 2 mitir ee maxaaday loo sharciyay 2 mitir ay isku jiraan class-ka 6 ku jiray waxaan u xidhnay maxaaday face mask iyo wixii la xidhanayo dhan baan u xidhnay إن شاء الله تعالى وحن رجينا امتحاناتكم رنتي وحيود عن سنة كسي في عم بيود عن وناك بدن عرضوا بلا بقى حيان مركب ورا وحلو ورسنا شن ما دو هالمر لقلي شن ما دو هالمر لقلي لكن رنتي إن شاء الله تعالى هذا عاد بين هذا دقين وحن رجينا جودهم با هذا يجمعون السومال رنتي امتحان كمان تقبل من قلبات إلى بري إن شاء الله تعالى قول نوصل لماذا نتيجة دي إن شاء الله تعالى نتيجة فرحة لا إنه نقطة إن شاء الله وحن رجينا رنتين أرض السنة النقدان يوالنتو يا معلمينتي يو وزارة الخبرشة يقصد هذا الشيء نتيجة يكون فرحان إن شاء الله تعالى وبعد كذا بنا النقطة هذا وناجي فرحة النقطة النقطة أنا ونحن رجينا رنتين هذا إنه سيدي النقطة هذا قال يوحي لنا أمري أنا كصوب إحنا إن شاء الله تعالى وأنكو دياري سكول كوادر كسر محاذي قلب كيف الحلقة عصرية أو محاذي وتم هذا شامبوغيسيون قعنا صارينه لقطة لو توجينايو بيه ولا قفلا حلانايو
macallin iyo arday kastana saaka waxaan ku bilownay inay saa u falaxashaan ardayda arkayseena noo ku bilownay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa khayr iyo guul iyaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliland ardaydiisa macallimiintiisa iyo wasaaraddiisa waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka runtii aad maxaaday ugu mahadsan siday u soo qiimeeyeen iyo siday u soo talagaleen in sanadkan imtixaanku u dhaco iyadoo xanuunkaas uu jiro maxaaday aafeeyay caalamka inaynu haddana maxaaday noqono inaynu qaadno imtixaankii wadamo badan oo caalamka oo inaga waaweyn oo la aqoonsan yahay maanta imtixaankii iyagu qiimeyn ka dhigeen laakiin Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhigtay maanta imtixaankii shahaadiga ah in isaga loo fadhiisto kuwa kale qiimeynha noqdeen laakiin isagu ardayga maxaad u gudbaya jaamacad u gudbaya inuu noqdo arday la gartay aqoontiisa iyo wixiisii aad iyo aad baan wasaaradda waxbarashada iyo maxaaday ugu mahadnaqnaa wasiirkeega xafiiska imtixaanaadka runtii maxaaday maanta mas'uuliyad weyn hayo oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhan maanta arday inta leeg imtixaankii ay u fadhiisteen intaasi wixii ka dambeeyay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ee heer qaran iyo heer gobol waxay si wada jir ugu dhawaaqeen inuu imtixaankii soo gabagabowday ilaahay noo suurtagelina si nabad ah oo nabadgelyo ah inoogu soo dhamaystirmo imtixaankii shahaadiga ah ee fasalada afraad ee dugsiyada sare 2019-2020 oo maanta markaa waddanka guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabsamay oo sanadkan iyadoo xanuunka la tixgelinayo ogeed wasaaraddu hal maalin ay imtixaan ka dhigtay si nabadgelyo waddanka dhan ku furmay si nabadgelyo waddanka dhan maanta ku soo gabagaboobay Axmed Yariic Iltire wararka warbaahinta SBC